Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelkayga mar labaad iyo mar saddexaad. Please share asxaabta waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe siisid, share, like, comment sidaan horeba idinka codsan jiray. Halkaas waxaad ku qoraysaa insha Allah searchiga waxaad ka baaraysaa Somali code. insha Allah halkan ayaad ka helaysaa Somali code 31 videos ayaad ka helaysaa halkaas. Marka aad ku dhufatid videoska oo kan please waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe taabatid. Subscribe marka taabatid waxaa kaloo ku soo baxaysa gambaleelkaas si taabo. Please waxaad heli doontaa update ayaad ahaan doontaa wax walba aan soo geliyo si aad qofka ugu horey u noqoto daawatid. haddii aad xiisaysid IT-ga ama computer science-ka wax walba aad ka helaysaa, operating system baad ka helaysaa, Python baad ka helaysaa, social media aan haddeer wadno aan meel kaga soo hari doono insha Allah. waxaad ka heli kadhaa WordPress sida lagu sameeyo theme, website administration, e-commerce baad ka helaysaa oo kukaas. haddeer waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago social media-dii aan hore u wadnay. horey markaan usoo galnay waxaan soo sameynay cashirkii ka horeeya waxaan soo sameynay postiyada si loo soo geli doono insha Allah. waxaana ka dhignay dynamic without page refresh. so hadda insha Allah waxaan geli doonaa home page doon soo galnay. home page-ka hore ayaan idin tusay kaliya waxaan ku daray set bar-ka kan ayaan ku daray user list-ga. halka kan ayaa waxaa soo gali doona users-ka ayaa soo degay iyagoo random ah. qofkii follow waa dhigi kadhaa halkaas ayaa flow ka soo bixi doona unfollow noqon doonta insha Allah. qofkii accept ilaa uu soo dhaho flow ma noqon doontid insha Allah. wax walba ma hagaaji doonaa. marka akhyaarta halka kan markaan maraynay hore ayaan waxa kan usoo sharaxnay waxay yihiin oo dhan hore ayaan kan usoo sharaxnay. asxaabta waxaan sameysanay table la yiraahdo postiga waxaa igu jira ID, username, text post, URL, image post iyo video post. insha Allah waxaan ugu daray insha Allah waan ku soo dari doonaa code-koodan waan qori doonaa insha Allah iyagoo hks lagu isticmaalayo. laakiin date post options like intaba way shaqeynayaan. marka aad tagtid page likes baan samaystay oo table ah oo ii gelayaan marka qofku like taabto la ii qabanayo user ID iyo post ID baa la ii qabanaya. user ID waxay noqonaysaa users kan tagaya ID-ga kan ayaa la ii qabanaya qofku uu yahay baa ii soo baxaya markaas. hadduu Shaakir yahay hadduu Muhammad Ali yahay intaba ii soo baxaysaa. post ID-gan waxaa la ii qabanayaa ID-ga kan ma ID 1 ba post 1 ba post 2 ba like that ma garateen. marka waxaan sameynaynaa tijaabada URL-ka ayaa geli doonaa. URL-ka waxa weeye waxaad kaloo geli kadhaa halka kan marka aad qodid Facebook qofka URL-kiisa soo qaada kadhaa waad ku soo geli kadhaa meesha. haddeer ka soo qaad Shaakir URL-kaas aan qaadayaa halka kan ayaan stay ku dhahayaa. waxaan leeyahay asxaabta ninkan page-kiisa booqo waxaad ka helin walba waxaad ka helin insha Allah like that. waxaad gasha kadhaa waxaad geli kadhaa emoji. haddii aan dhaho adeer without this public haddaan dhaho halka kan ayuu iga soo baxaya hoosteeda tan anigoo aan page-ka refresh aan siin. laakiin haddii aan saa ku dhaho ma ii soo baxayo. haddii aan fiirino
you posted successful. Okay, waa ogahay laakiin ima soo bixin. Why? haddii aan tago halka kan waa igu jira laakiin halka kan halka oo qabo options ka ayaa halkaas waxa ku qoraysaa public. hadeer way taalaa oo kaas. Okay, haddii aan fiirisid URL kii waa ka kan marka ku dhufto wuxuu i geenayaa page kiga waa ka saas weeye URL ka waxaan ka wado marka qofku wuxuu soo geli karaa YouTube URL ka isla yahay dadka kan hees baa soo baxday waa kaas cashar baa soo baxay waa kaas halkaas sida Facebook caadi ah lagu soo shaqeeyo halka waxa weeye asxaabta ninka kan page ka qofku saas u fiirinayaa waa kaas. Okay, xilligu soo geliyay 10 January 2019 waa maanta xilliga kan aan duubay videoga asxaabta marka ay saas tahay waxaan sameynayaa xagga 0 likes way. Okay, 0 likes way like haddaan dhaho ka waran halka waxaa isbedelaysaa waxa soo badaya love for so fully unlike for so fully. haddii qofku dhaho ma rabo like ila socda page ka ma refresh garaayo only halka kan tiradan way isbedelaysaa halka kan tiradan way isbedelaysaa ana on page ka refresh gareyn bay tirada isbedelaysaa halka kanna way isbedelaysaa oo kaas. Okay, 0 noqotay haddii aan taabto 1 bay noqonaysaa haddii aan taabto 0 noqonaysaa. Okay, inaad ila socod isku day haddii aan ka soo galo dhinaca kan haddaan ka soo galo. Okay, qof baa halka kaga jira haddii ka soo qaad halkan waxaa ku jira qofka ku jira waxa weeye Shaakir Ali yaana soo dhigay meesha Shaakir marka halka kan waxaa ka soo galaya local no project halka kama tagi karo halka kana waxaa ka soo galaya hatta waxa weeye telephone waa loo isticmaali karaa iPad waa loo isticmaali karaa wax dhan halka kan waxaa ka soo xagan igu jira haddaad ila arkaysid Shaakir Bilal baa kan ku jira halka kana waxaan ka soo galayaa Muhammad Ali Bilal. Okay, login inshallah page ka soo gali doonaa halka kan ayuuna keenay halka kan waxa ii yaala post haddaan qofka fiiriyo soo galaya weeye Muhammad Ali Bilal ba soo galay. Okay, halka kan post baa yaala oo Shaakir ii soo galiyay marka 0 likes weeye halka ila fiiriya halka kan ila fiiriya haddii halka kan aan siiyo like halka ila daawada waxay noqotay 1 like. Okay, like kan waxa weeye unlike ba soo baxday kanna waxa weeye haddii uu asaga taabto halka kan 2 noqonaysaa kanana 2 noqonaysaa waa without page refresh. macnaheedu waxa weeye ka soo qaad laba qof oo laba dal kala jooga ayaa isticmaalaya kan markuu qofka kale markuu commentiga ka bixiyo halka kan ayay ka soo baxaysaa waxaan insha Allah sameyn doonaa in halka kan noo soo furaan notification ka insha Allah. unlike baan dhahayaa unlike marka dhaho waxa ii soo baxaya like caatada marka waa kaas waxaan ii tusaya marka qaabka aan u sameeyay ninka kan hadda duu rabo inuu soo gashto cashar ama wax soo gashto hello asxaabta oo kale hello asxaabta sorry agan tag xawaya taxi iska soo qaado markan wasal ku buuxaa because of waxaan doonayaa inaad ka faa'iidaysataan qaabka loo sameeyo emojiga iyo waxyaabaha kan oo dhan. haddeen markaan dhaho public ila daawada hadda ay public markaan dhihin ima soo bixin laakiin haddeen markaan public dhaho halkaan Shaakir oo isbedelaysa hoos buu aadaya waxa soo fulaya Muhammad Ali Bilal ila daawada. Okay, halka maxaa soo baxay Muhammad Ali halka kana Muhammad Ali you post successful. Okay, marka waxaan idin sheegayo waxa weeye page kan uma baahna wax refresh uma baahna wax load ah page mar walba aad dhehaysid uma baahanaysid. Okay, waxa weeye 0 likes weeye. Okay, Muhammad Ali hadda waxa uu soo dhigay waa leeyahay like buu ku siiyay halka maxay soo noqotay like bay noqotay. That's it. marka inay la fahanteen baan u maleynayaa waxaan ka hadlayo
haddii aad wax ka fahmi weydid please codeka ayaan hadda guda galaynaa oo codeka ayaan rabnaa in aanu qorno inay tuso codeka qaabka aan u qornay iyo qaabka u kala socdaan please and please and please haddii aad fahmi weydid commentiga ayaad nagu reebi doontaan sababtoo ah idinka ayaan idin joognaa meesha inaan idinka caawino waxyaabaha kale oo dhan developmentiga ku saabsan web developmentiga marka please and please waxaan kaa codsanayaa in aadan siin share please share si waxaan kaa codsanayaa inaad share siisid comment iyo like taas mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waa kaa codsanayaa adiga oo subscribe ii taabanaya page-kayga okay marka unlike dheh haddii unlike dheh haddaan ku noqotid table-kayga lega waxaad arkaysaa hal xabo inuu ku jiro halka xabo waa kee kan weeye hal xabo ayaa ku jiray oo waxaa soo geliyey userkii kale haddii aan kan ka baxo oo halka kan tago oo aan dhaho abc 1 2 3 4 5 6 aan galo halka kan user 2 ayaa geliyey user 2 yaa weeye waa ninka kan hadda soo galay haddii halkan fiirsid unlike baa itaal unlike markaan ka noqdo zero ayuu noqonayaa halka markaan refresh uu baxaya markaan postigayga tagana 0 ayay noqonaysaa insha Allah step by step ayaan idin tusayaa inaad ila socotaan please and please and please isku daya okay waagan codekii sidaan hore idin soo tusay hx markaan ku soo xirnay oo inaan soo furno isku day hx-ka kan iga xir javascript main.js okay marka hore waxaan sameynay hx-ka insertiga ayaan soo gelinay waatatan insert ayaan soo gelinay sidaan hore idin tusnay marka inaan ka gudubno isku day haddii aadan fahmayna casharka hore dib u laabo saad step by step ula soo socotid session ayaan furanay waan gelinay waa lecture-kii kan waxa weeye casharadii hore weeye aan casharkii ka hore ku sharaxnay waa ka noqonaynaa marka fetch baan tagaynaa code baan sameynay fetch la yiraahdo aga kan aad timaadid waa kan fetch posts okay waa fetch posts waxa weeye postiga kan halka ordiya kuwa kan halkan u soo saarnay ayaan tusinaa fetch post ayaan iri waxaad tiraahdaa function baan samaystay oo la yiraahdo fetch post hx baan iri url-ka fetch.php oo kan ah method ayaan samaystay post way method kana success function html ama waxa ka dhigi karaa somali code halka somali code hataa ka dhigtid oo shaqeynaysa because waxaan ka wadaa wadifa u baahan tahay halka ka shaqada rubber comment hadda aan kan idin tuso meesha ku yaalo waxa weeye rubber comment waxa weeye rowgii aan ka soo geliyay oo tan oo dhan wada bahalka kan oo dhan cadaanka ah inta tan ilaa ay si meesha tan cadaanka ah oo dhan bahalka wada oo dhan weeye bahalka kan oo dhan kan wada ayaan iri rubber comment haddii aad halka kan tagtid waxaad arkaysaa dig keligii cilad taagan laakiin xagga kan ayaa sectionkii waxa weeye postiga meesha postiga laga soo saarayo weeye oo qoraalada tan iyo meesha kasoo baxayeen marka rubber comment id-gaas xagee uga yeeray fetch kan uga yeeray okay inay la socoto isku day because of xagga kan adaa intimaada hx-ka fetch baan u diray marka functionka kasoo baxaysa successka ama aakhirka meesha kasoo baxaysa divka kan ayaan u yeertay waxaa yiri html-kiga soo saar marka html-kaas xagee u noqonaysaa successkaas xagee buu u celinayaa datada wuxuu u celinayaa fetchkii ayuu aadayaa halka kan waxa kan oo dhan ka dhacaya waxa kan meesha ka dhacaya oo dhan ayuu soo saarayaa dibka laga bilaabay ilaa iyo meesha ku dhamaanayo wakaas marka waxaan iri waxa meel walba page ku is refresh gareynaya haddii aan halka kan inspect idin dhaho oo halka kan aan idin taabto page-ka hadda arkaysaan wuu badboodaya bluega kan nooca kan wuu badboodaya dibku every 1 second waxaan iri page-ka ii samey refresh okay haddii aad halka kan ila aragtaan
set interval function baan samaystay 1 second baa idhi rubberkii aan ahaa oo dhibka ay isoo tusay oo halka kan ahaa dhibka kan baan waxaa idhi dhibkaas baan waxaan idhi load iigu sameey xagee load ku sameeyaa buu yidhi pageka fetch.php oo kan ah oo kan maxaa meesha kasoo baxaya waxaa kasoo baxaya warqadda cad oo dhan baa ii soo baxaysa marka warqadda cad oo dhan maxay ii qabanayaa 1 second walba wuu ii refresh gareynayaa okay inay ila socotaan isku day 1 second walba refresh buu igu sameynayaa asagoo igu sameynaya slow fade in igu soo saaraya si slow okay marka waa kaas waxaan u gudbaynaa fetch baan tagaynaa marka fetch markaan nimi waxaan kusoo xiranay connectionkeeni ee database-ka session-kii baan furnay oo waxa weeye userka session-keeni labada session aan horay usoo furanay session-kan xagee ka timi maca haddii lagu dhaho oo su-aasha tan iweydiisay session-kan xagee ka yimi haddii aad xasuusataan markaan soo sameynaynay pageka login-ka waxaan sameysanay sessions halka kan markaad timaadid sessions oo kuwa kan session user id session username session fname iyo last name that's it hadda way la socotaan iglab kana iglab kana iglab marka session-kii weeye waxaan idhi fetching post table into browser marka halka kan ayaan kasoo saarayaa kan ayaan waxaan rabaa inaan kasoo saaro browserka select all from bosses baan idhi where optionsku uu ila eg yahay public marka hadaya maxaa idhi hadda kan haddii aan tagno optionka kan oo Muhammad Ali halka kan haddii aan dhaho private haddaan dhaho maxaa weeye ima soo bixin shaakir booga soo laakiin waa in aan dhaho public si dadku dhan u wada arkaan okay waa kaas xaq ka soo baxaya kii koowaad waa kan kii labaad waa kan marka public waa inuu ila ekaado haddii halka private ka dhigo private ma noqonayo order by id descend by id sababtoo ah wax markaan qoro kan hoos buu degayaa midkii cusbaa oo ka teemka ka dambeeyay ayaa soo baxaya insha allah saa ila arkaysaanba marka okay waxaan yidhi if my SQL ay numbers waa maxay waa rowga kan oo dhan weeye waan waxaan ku idhi haddii uu ka wan yahay 0 oo macnaheedu maxay tahay haddii ay wax ku jiraan iisoo saar baan idhi waan furtay meeshuu ka xirmaya waa halkee halkaas ayuu ka xirmaya okay halkaas ayuu ka xirmaya marka waxaa idhi inaan loop ka dhigan doonaya iisoo laalaabto while baan isticmaalay variable baan dhex gashtay oo la yidhahdo row my SQLi fetch array iisoo saar baan idhi querygaas waa maxay waxa weeye waa database-ka querygiisa ayaan variable leekaysistay intaas oo dhan intaan soo qaadi lahaa waxaa iiga fudatay inaan ku isticmaalo variable halka kan iyo halka kan ugu yeeray okay kadib waxaan soo fetch gareeyay all waxa igu jiray meesha tan oo dhan these rows oo dhan baan waxaa idhi fetch iisoo siibaan ku idhi iisoo saaray functionkan laakiin date markaan marayay waxaan isticmaalay asagoo halka kan wuxuu ii gelin lahaa tirafol date-ka haddaad arkaysid laakiin browserka wuxuu iga soo saarayaa date-ka ay maanta tahay haddaad halka kan ila arkaysaan haddii aad ila arkaysaan hoostatan halka kan date-ka waxaa weeye 1/10/2019 halkuu iga soo saaray okay function waxaa isticmaal la yidhahdo get date time baan sii geshtay oo functionkii ahaa halka kan waxaa isticmaalay day oo date-ka kan ayaa isticmaalay oo kaasay usoo baxaan maalmihii iyo bishii iyo yearkii diff baan xagga idhi diffka kan diffkaas waxa weeye col md-ga oo dhan weeye intaas oo dhan weeye okay intaas oo dhan warqadda caddaanka qoraalka ku qoran oo dhan meesha kasoo baxaysa waa halka kan
diffkaas wuxuu igu xirmayaa halka kan ka xirmayaa halkaas ayuu ka xirmayaa okaas waxa iri haddana diff kale ayaa jira oo aan styleka ugu talagalay oo warqada cadaanka iyo noocyadaas stylekaas quruxdaas aan u sameynayay kadib baa ku jira da halkaas ku xirmataa intaas waxa ku jira intaas ku jira date-ka ku jira magaca ku jira iyo profile-ka okay halkan image baa igu jira image-ka way dynamic kama indigin inshallah profile-ka markaan sameyno ayaan ka dhigi doonaa dynamic inshallah biidillah ta'ala kareem halka kan image-ka ku xirmay name-ka kan halka kan ayuu ka soo baxayaa username okay name-ka qofkii soo geliya way qoraalkii qof walba oo soo qortay meeshiisa ku soo baxaya marka waxa yiri day oo ah maalinka aga 10 way 10ka way okay inay la socotaan isku day adana php kala adana furtay oo ah month oo halka kan ah January oo bishii ah halka kan waxa yiri year oo sanadkii ah 2019 okay bid waa xiray PVC ku jira xogaa way ka dambeynaysaa okay inay hoos u soo dhacdo display block note ayaan doonayay marka hrefan hr baan yiri hr ka maxay haddii aad ila arkaysid deelin baa halka maraysa okay deelinta waad arkaysaa filayaa okaas deelintaas ayaan rabay hr ka that's it comment body waa qoraalka kan iyo waxa kan oo dhan waye comment body waxaan xagga gashtay post taxi post iso saarban ku taxi post waa kan qoraal baa igu jira qoraalka ayaa ka soo fajilay okay url ka halka kan waye and url ka ila fiilisaan url ka hada ila fiilisaan eeda href ayaa eed waatan waa kalarka ka duwan tahay waxaan ku iri hrefkeeda waxaan geliyay url su'aalo page-ka laga soo galiyay okay page-kii laga soo galiyay su'aalo target binary blank macnaheedu meel kale igu fur ayaan iri haddii aad tiraahdid self isla page-ku ku furmayaa isla page-ku ka furmayaa no self meahead self target okay target I think target self in ahead yes isla page keyboard ku furmaysaa okaas page ku wanaga saaraya that is it page ku wanaga saaraya marka waa in blank andana blank maxaa weeye markaan ku dhufano wuxuu noo furaya tab kale okay hadina la fahantin muuqanaya haddana waxa iri iso saar url ka ba qoraalka iga soo saar url ka waa ka soo baxay www.youtube.com laakiin waxa u qarsoon waxa weeye isla asagii url ka aan gelinay href-ka oo aadaya meel haddii aad html tag aad hore u fahansaneed href waad garanaysaa waxa tahay insha Allah spanka kan xagan ka gudbay waxaan ku iri insha Allah kan image-ka tan ka qaada kan image ayaa ka soo baxaya wakaas ano page refresh garan isaga refresh isku wada image-kaas insha Allah gadaal ayaan ka habeyn doonaa halkaas saas inoo ahaanaysa marka un gudubno where posts-ki halkaas ayay noogu xirmatay posts-ka lagu sheegayada intaas ayaan ku sameynay intaasana lagu sameeyaa ADA kale u malayn maayo inay jiro oo lagu sameeyo marka halka kan span ayaan haystaa spankaas wuxuu iiga xirmayaa halkaas commentiga insha Allah casharka ku xugaan ka dhigi doonaa hadeer waxaan maraynaa likes iyo waxaan maraynaa iyo post marka likeskaas class baan u samaystay waa design-ka kan aan saas aan u galgashay ayaan kaga dhigay okay marka waxa iri color blue font size ka waa weynay 20 pixel font weight ka 90 baan ka dhigay class waxaan siiyay unlike aan u isticmaali doono JavaScript
href ka waxban ma gelin id baan geliyay waxaan geliyay id ga postigii id giisi baan geliyay sababtoo ah waxaan rabaa in ay ii qaado post 1 post 2 post 3 post 4 like that okay marka taas araday waana ii wadaa okay marka wakaas waxa iri id marka halka kan waxa ay igu jira font awesome baa igu jira oo wadnaha buluuga ah marka halka unlike way sababtoo ah markaan ku dhufto maxaa soo baxaya unlike iyo wadna rag colorka maxaa iri wadnaha red baa iri okay font size kan waa weynayay haddii aan halka ka dhigo 50 uu si weynaanayaa that's it wuxuu sii noqonayaa wax weynaaday haddii aan halka ka dhigo 150 wakaas uu si weynaanayaa marka ma rabo 30 laga qaatay dib aan noqdo wakaas wax refresh ma bana isaga intaas oo dhan ayada refresh isku wada that's it marka ina si fudud fahantis ku day halka kan waxa weeye unlike markuu qofku dhaho weeye halka kan hada ila akhrisid if user already clicked like button hadu marka hore siiyo user will see this button bu arkaya oo unlike abu arkaya wakaas button kaas oo soo baxaya haddii aysan uusan siin like waxa else halka kan ayaan furaynaa sorry else expand contigi way kan else waxa ii soo baxaya like button baa ii soo baxaya oo halka muxuu ii wataa classkiisa waa like id giisa muxuu ii wadaa this one buu ii wadaa oo id gi postiga buu ii wadaa okay and markii aad tagtid halka kan imo like button baa imi click marka iri oo ah classka kan marka aan click siya baa iri functionka page in uu refresh uu dhaho iga ilaali baan ku iri prevent default in noqo argument ii wada argument waxaan ku iri prevent default okay variable post id baan sameysay this muxuu ka wadaa this wuxuu ka wadaa this variable kan oo id ga wado oo ah post id kan may this one okay ii wada agan ka xiray function waxaan sameysay like la yiraahdo hx baan iri hx ka url like.php method ka post data type kan waxa weeye serverka ayaan ku geenaynaa waxa way ugu qaadaynaa post id oo ah kan variable ka waa kan kana waxa weeye waa data type waa datadii weeye oo noo qaadi lahaa okay marka xagga waxa ku dhamaaday intaas waxa ku dhamaaday like button marka like.php una geenayaa markii aan like.php aan halka kan fiirino post data type kan post id ayaan halka kan iri post id is id post id ma iri post id legacy user id session user id okay halka kan imo waxa iri select all from posts where id uu ila yahay post id because of id gu ii wada id posting id giisa waxa ii wada eedatan class leg baa ii wada wakaas hadaad ila fahmaysid post id gu ii wada marka ha ila ka taban ku iri okay post id ka markan click si waa in postiga aan hayo weeye okay waxaan ku rooga ma waxaan rabaa inaan wangeliyo halka kan inaan wangeliyo rabaa waxaan u digdig leeyahay oo raba inaan sameeyo waxa weeye halkaas aan rabaa in one bay noqotay okay because of like buu haystaa qof unba like haysta wakaas like baa jira okay wankaas ayaan rabaa inaan geliyo meesha where okay waxaan ku iri MySQL fetch array iso saar baan ku iri table-ka iga soo saar row kan okay like is kan iga soo saar waa like-gaas okay like-ga iga soo saar baa iri iga soo saaray updating post table set like will be update like wuxuu noqonayaa
1 2 3 4 5 6 qofkii mar walba leega la sii tirada sii badanaysa okay update waxaan ku soo xirtay database-keygii query baan yidhi update post set likeska oo likeskaas ah baan ku idhi variable kana soo qaatay ama waxa dhihi karaa likes plus 1 baa dhihi karaa aan like variable baa like say n plus 1 where id wahe oo ileeyahay post id okay id kan baa waxaan la ekeysisay post id waxa geeyay yima wakaas sababtoo kana waxaan la ekeysistay ila waxa ay wada data ay wada kaasan waxa la ekeysisay this one okay update plus ii noqonaya markii uu aan click siiyo buttonka waa in uu xagga kana update-ka kana 1 ii noqdo la ina geliyo likeska inuu ii geliyo insert into likeska waa inuu ii geliyo likeska maxaa igu jira user id iyo post id san hore idin tusay user id-ga kan waa maxay waa session-kii aan hore idin soo tusay oo halkaas soo dhigtay waa rabaa inaan id-giisa ka maamulo okay user id where okay insert user id post id-gan waxa weeye post id-gaas marka waa marka aniga like hadii aan dhaho uu aadayo gudaha u galay hadii aad fiirisid 1 buu noqonayaa labada post 1 baa yaala okay wakaas 1 iyo 1 marka unlike button markaan ku dhufto hadii ay fiirisid waxaan ku yiri insert baan ku iraha ka soma insert kale marka 1 noqoto waa la insert kale waka laba post baan haysaa 6 7 oo idiyadii ay user 2 iyo user 2 yaa weeye waa Muhammad Ali Bilal hada user ka tagtid maxaa ku qoran halka user 2 okay ay la fahanteen post-yada dalayga tagtid waxa weeye id-ga 6 weeye and id-ga kale waxa weeye 7 okay 1 iyo 2 bay kala leeyihiin marka user-ka koowaad iyo waxa kala siiyay 2 okay marka waxa rabaa 1 iyo 2 bay kala leeyihiin post-yadu 6 iyo 7 marka post id waxa weeye 1 iyo 2 macna post-yada id-yadu waxa weeye 1 iyo 2 okay 1 iyo 2 muxuu kala leeyahay 1 iyo 1 okay hada ila fahanteen marka post 2 wuxuu leeyahay 1 post 1 na waxa leedahay 1 wakaas marka unlike marka waxaan joognaa halka kan unlike button markaan ku dhufto waxaan rabaa unlike markaan dhaho halka waxay noqotay 0 hadii halkan noqotid uu tirtirmayaa 2ga hadii aan postiga tago 2gu waa tirtirmay waa kaas 0 noqday okay marka unlike kaas markaan ku dhufto maxaa saa ka dhigay code yar baan qoray oo macna lahayn isla intii oo kala soo koobiyay unlike button edge waa kan unlike class-ka aan hore idin soo tusay oo halka kan ku jiray where wakan unlike kaas soo qaatay waxa iga ilaali page-ka inuusan refresh usan dhihin bayri post id 1 bayri oo aan samaysay variable isla intii weeye buu yahay id-ga kan waxa weeye waa id-gii ku jira halka kan unlike button-ka eeda ku jira weeye waa kaas okay baan ku iri iqabo unlike function-kii halka ugu yeeray function-ka unlike baa samaystay age wakaas like.php intii kala waa samaystay laakiin wuxuu ka duwan yahay post id 1 by id sababtoo ah data type inaan uga yeerayaan doonaa okay unlike code php here sorry if is my id post 1 okay post-gii sidoo kala sameeyay user-kii laakiin kan wuxuu leeyahay delete buu leeyahay delete from likes maxaa laga deleteyaa hadii aad ka tagtid hal baa ay ku jiro Soomaalian marka hadii aad fiirisid delete from likes where post id uu leeyahay post id laakiin maxaa ku sii raacsan kan an user id uu leeyahay user id sababtoo ah hadii uu qof kale saddexaad soo galo like-gaas ma tirtiri karo ilaa uu user-kii like siiyay kaliya ayaa like kala noqon kara dadka kale waxa soo baxaya gal like kaliya soo baxaysa ma taaba karaan mana xagga tiradaas isu bedelayso marka okay kadib baa iri markii la edit gareeyo page kale oo postiga ah
update igu samee baa yidhi setka legiska ah -1 ka dhig baan awal maxay ahayd +1 bay ahayd -1 ka jar 1 ka baan ku yidhi 1 ka jar where id uu ila iyo post id waa maxay koodkaas qaabka u shaqeynaya marka su'aasha u shaqeynaya waxay tahay markii aan nimaano haddii aan like taabto maxaa ku soo qornay 0 haga kan waxa isoo baxay like normalka ha oo caadiga ah isoo baxday marka haga ka fiirisay would lead me koodka qaatay koodka kan ayaa shaqeeyay okay koodka dambe see ku shaqeey doonaa waa la idiliday post id ga marka tagtay postiga haga kan 00 marka muxuu noqday -1 waa la iga jaray that is it intaan kaliya ayaan ku soo afjarnay page ugu horeeyay ee social media postiyada si loo soo geliyo sida emoji looga soo saaro meel walba sida wax walba loogu sameeyo sida like loo sameeyo like contiga tiradaas marka si u soo saarno macna tiradaas halka ka soo baxaysa sida u soo saaray kan sida uu bedeshay markii aan like siisid halka wamba soo baxaysa anoo page ka refresh taawan markaan taabtana 0 bay noqonaysaa markaan taabtana 0 bay noqonaysaa sidee waa su'aal isweydiin intaas yogeedu marka aan dib u noqono waxa sameysanay span count where span ki waa kan that's it unlike way okay hakanimo waa kan span conti class conti baan siinay saan uga maamulno conti baa waxaan select likes from posts where id uu ilaga id ga way id gaas waa id ga id ga kan way id gaas way that's it because of posting oo dhan ba hakan yaala waxaan id ga ilaga laakiin maxaan ka doortay likes kaliya result ba MySQL fetch array isoo saar baan ku conti oo halka kan ah conti likes post baan waxa la ekeysistay resultiga likeska marka halkaas waxa uu yeeray php why marka page-ku mar walba isku refresh gareynaya because of diffku ay ku jiraan oo dhanba waxa 1 second walba refresh ay sameey hadii aad page-ka fiirisid every second waxa ku socda page-ku dhan waxa ku socda marka aad tiraad page-ku dhan every second waxa ku socda yes refresh waxa ku socda gaarkiisa lifta badboodaysa yes that is it waxa ku socda refresh marka wanki waa isoo baxaya tiradii soo baxaysa focus okay marka tiradii baa soo baxaysa halka kan marka ka soo baxaysa likes halka kan ayaa ka soo baxaysa marka fiirisid contiga waa kaas conti post oo halka kan aan leekeysay resultiga halka ka soo baxaysa color baan si orange red ah oo colorkaas weeye hadda marsan okay waxa weeye pizza likes baan ku qoray iyo waxaan dhigay wadnihi man dhinac dhigay wadnihi okay and spankas halkaas uu ku xirmay hijra like baa ka yaala insha Allah commentiga waan ku dari doonaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akhyarta waxaan idin ka codsanayaa in aad share gareysaan page-kayga kan YouTube kan ku leeyahay please kala waxaan ka codsanayaa in aad like comment share iyo subscribe inaad inaga ilaawin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan ku leeyahay subscribe-ka inaad igu isku day because of wax lacag lagama qaadayo waxaad u baahan tahay ma jiro kaliya buttonka click siiso waxa ku soo baxaysa kambalkaas leegdaas taasoo kala ah taabo kadib waxa helaysa doontaa lecture walba markaan soo gali doono insha Allah biidhnillah ta'ala kareem waan dhameystiri doonaa insha Allah waxaan soo gali doonaa cashada maalmaha ku xiga maalmaha kan dhow network ma bilaabi doonaa insha Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh